أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين يا رب العالمين. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودرسيني تحانها أها aynu kaga hadlaynay inaan waxoogaa bidhaamino makhluuqaadka thaqalaynka la isku keen yidhaahdo ee caalamkan inagula nool, sida uu ilaahay rasuulkiisu inoo sheegeen. dhammaan kutubta samaawiga ah ee rabbi soo dejiyeyna ku xusan, asaynaan inagu arkayn iyagoo ina arkaya, inaan qadar yaroo macluumaada ka helo ayaa warbixinteedii hadalkeedu oo halkan inala soo gaadhay. waxaynu ka warannay nooc kastoo sixir ah, caamilka iyo sababta uun had iyo jeer ka dambaysa inay yihiin caalamka inaga hooseeya wax ka mid a shayaadiinta. waxaynu ku guda jirnay sixirka la yidhaha sixra tafriiq, adiladii qur-aanka kariimka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu kaga warramay sixirkaasi wax jiray inuu yahay waynu soo caddaynay, macnaha uu leeyahayna waynu soo caddaynay, ujeeddada loo isticmaalana waynu ka soo hadallay. waxaynu ka soo hadallay oo kale calaamadaha ruuxa sixirkaasi uu haleelo, calaamadaha lagu garan karo wax ka mid a oo calaamadaha adigu ugu muuqaalka badanlana waynu soo tilmaannay. waxaynu dul taagannahay inkastoo aynu horena uga soo hadallay sixirkan wax ka mid a, laakiin macluumaad guud unbuu kaasi ahaa ee hoos ugmaynaan dhaadhicin. sixirkan sixra tafriiqa la yidhaahdo, sida uu ku yimaado ama loo maxaanku idhaahdaa isticmaalkiisu uu ku hirgalo ayaynu rabnay wax yar iyana inaynu ka tilmaano haddii alla ka dhigo. kayfiyat yaxduthu sixr altafriiq, sideedaba sixirku boqolkiiba hal ama laba ayaa laga yaabaa inuu sidii loogu talagalay maqasdigu ahaa inuu u dhaco, inta kale wuu fashilmaa. ilaahay baana inooga warramay subxaanahu wa tacaala, walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa. dunida iyo aakhiro midna kuma liibaano ruuxa caado ka dhigtay inuu sixirka sameeyo iyo ruuxa caado ka dhigtay inuu sixiroolaha u tago oo uu khalqiga ku sallido uu yidhaah sixir iigu samee. labaduba waa malcuuniin, waxaanay ku dhaceen muubiqaadka iyo halaagyaalka ugu waaweyn sabcal muubiqaadka ka labaad bay ku dhaceen. waxay aafo iyo dhibaato geystaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ugama tago. ifka lagu tusaa, ka sixirka sameeya iyo ka loo sameeyo labaduba caaqiba xumo iyo tooba xumay inta badan ku dhintaan, ilaa cid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu towbada ka aqbalo dib uga soo noqota mooyaane. markaa sixra kan lagu yidhaahdo sixra tafriiq
cid baa aqoon u lahoo loogu tagaa dad aafaysan oo aan ilaahay ku kalsoonayna way u tagaan waxbay isweydaarsadaan kolka rabbana istamtaca bacdunaa bibacdin waxbay kala faa'iidayaanoo ninkan sixiroolihii maal xaaraanu qaadanaya midkan u tegay ee xaasidka ee xaaqidka ah ee sixirka loo samaynayaana cid buu hadimaynayaayoo kuwaasuu isagu markaa uu ku wiirsanayaa ama uu ku farxayaa ama uu doonayaa inuu addoon ka dhigto qalbigiisa iyo doorashadiisa iyo dareenka qofka bini aadmiga ayuu rabaa inuu maamusho isagu haddaba sidee buu u sameeyaa saaxirku marka uu rabo inuu cid sixir u sameeyo tafriiqa waxay yidhaahdaan culimmada baaxisiinta ku abaabkan haddii saaxir haddii loo tago oo uu rabo inuu wax sixro uu cid u sixro su-aasha ugu horeysa uu qofka weydiinayaa waxa weeyaan ruuxan aad rabto inaan kuu sixro waxaan rabaa magaciisa iyo magaca hooyadii haddiiba aada aragto intaad ifka ku nooshahay ruux isticmaalaya magaca iyo magaca hooyada ku weydiiya markaaba waa inaad ogaataa inuu ninkanu saaxir yahay sababtoo ah waan ka soo hadalay sababta ay inta badan magaca hooyada ay u igmadaan oo waxaynu idhi shayaadiintu aabbaba male waa dad uun maxaanku idhaahdaa sekadaha isku roorsada marka jimanka saaxiriinta ama shayaadiintu abtirsiin ma laha oo siday waa sida bahaa-imta unbay isu roorsadaan marka ruuxa jinka ama shaydaankan caadiga maaha jimanka muslimiinta ah oo maxaanku idhaha mu'miniinta ahi sida aynu isu guursanno aynu u taranno ayay iyana u tarmaan laakiin waxaan sixirka loo adeegsanaya shayaadiinta noqday iyagu isma guursadaan saaxiibuun bay noqdaan waa halka iska helaan sidaa darteed aabba ay ku abtirsadaan iyo isir ay ku arooraan ma lahan waxay markaa tixgeliyaan in ruuxa loogu abtiriyo hooyada haddii magaca hooyada ay garan waayaan ruuxan la rabo in wax loo qabto kor bay u kacaan ilaa iyo hooyadii asalka ahayd ee xaawo ayay ictimaadaan haddii markaa ruux saaxira aada maqasho ama aada aragto isagoo ku leh magacaaga iyo magaca hooyadaa isii ama magaca ruuxa iyo magaca hooyadii isii wuxuu isticmaalayaa inuu junuud aan abtirsiin lahayn inuu kuugu abtiriyo oo dabadeedna uu ku howlgaluu rabaa waa kow wuxuu kaloo kaa dalbanayaa saaxirka raba inuu cid sixro athar min aathaari almasxuur wuxuu raad ah oo raadadka ruuxan sixirka loo qabanaya ka mid ah inaad u keento wuxuu ku odhanayaa maro uu qofkaasi leeyahay wax iiga soo goo ama wuxuu ku odhanayaa kabaha uu xidhan yahay wax iiga keen ama sharabaadkiisa ii keen ama timihiisa ii keen ama ciddiyihiisa ii keen waxuun qofkan bini aadmiga ahee la raba in la sixro laga heli karo d n a-diis ayuu rabaa inuu helo taasuu markaa wax ku qabanaya marka wuxuu ku odhanayaa athar min haada aada u rabta inaan sixirno wuxuu raadadkiisu ay ka muuqanayaan isii sidaa darteed baa waxay culimmada islaamku ay had iyo jeer ay door bidaan markaad ciddiyaha iska gurtoo kale iyo markaad timaha iska xirtoo kale in aada meel ku aasto ama aada meel ku asturto waayo labadan maado ciddiyaha iyo timuhu aada uma duugoobaan ciidduna dhaqso uma cunto haddii markaa timaha inta sixirka lagu qabto ama ciddiyaha qofka loo aaso waxaa laga yaabaa intay maadadaasi jirto inuu sixirkiina adeegayo iyo shaydaankii loo igmaday hadday taasi dhici weydo oo maalan maadadaa la waayo
shayga qofka bini aadmiga ku tacalluqda waxa la samaynayaa bay yidhaahdeen biyo ama shay nijaas ah ayaa wax lagu soo aqriyayaa sixirkii iyo wax la mid ah ruuxan la rabo in haddii aan la yidhaah maskaxdiisa la maamusho ama maskaxdiisa tafriiqa lagu sameeyo iridka uu marayo iyo waddooyinka uu maro aqalka hortiisa iyobay ugu daadiyaan marshuush ayaa la yidhaha sixran marshuush qofkii oo aan maxaanku idhaahdaa aan haysanin ama aan samaysanin xijaabkii rasuulku ina siiyey calayhi salaatu wasalaam difaacii rasuulkeennu ina siiyey calayhi salaatu wasalaam haddii qofku markaa aanu haysanin waxaa suurtagal ah shayaadiintii sixirkan loo soo igmado heegan ah inay qofkii ay ta'hiiriyaan waxaa suurtagal ah si kale inay sameeyaan oo ruuxan la rabo in la sixro ama jamaacadan la rabo in la sixro in raashin ay cunaan ama waxay cabbaan in loo sameeyo dabadeedna ay sida uurkooda ku gasho ama waxay sameeyaan sixir bay intay sameeyaan ayaa intay haddii alla ka dhigo qardhaasiya wax ku qoraan oo ay si aada u xijaabaan oo waxyaalahaan ciiddu cunayn ay ku duubaan sida haddii alla ka dhigo waxyaalahan aan ciiddu cunin sida badan baabuurta taayirkooda oo kale iyo wax la mida ayay dafniyaan inta uu markaa sixirkaasi jiro waxaa suurtagala ruuxaasi inuu kadeed iyo dhibaato ama in sixir meel ka laalaada loo sameeyo waataan ka soo warranin noocyadaas oo dhan sixirka la isticmaalona waxaa ugu howl badan sixirka xidhiidhka la yeeshay jasadka qofka bini aadmiga oo aan uga jeedno ka la cuno ama ka la waraabiyo ee jidhka ku faafa sixirkaasaa ugu howl badan noocuu doonaba ha ahaada ee sixirku boqolkiiba 99 sidii loogu talagalay uma hirgalo oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala uumiyihiisa ka difaaca waxaanu inooga warramay walaa yuflixu saaxiru xaysu ataa markaa qofka mu'minka ah oo mutawakilka ah oo ilaahay ku xidhan rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu baray haddii alla ka dhigo difaacyaal qofka mu'minka ah ilaahay kaga difaacayo sharka ay leeyihiin sixiroolayaashaasi marka haddii qofka mu'minkii u dhega nuglaado dardaaranka rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo waxyaalaha nebigeennu yidhi isku difaaca qofka mu'minka ah uma maara helaan in badan waxaan idinku waaniyey oon hortiina ka tilmaamay waxaa ku dadaashaan dad iyo weysada alwuduu silaaxu lmu'min weysadu waa mu'minka difaaciisa weeye makhluuqa inala dagaalamaya oo shaydaanka ah wuxuu awood u leeyahay inuu isagu ina arko innaguna ma aragno laakiin ilaahay wuxuu ina siiyey hibo iyo nicmo uu adduunyadan u soo diray oo ah rasuulillaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh waa manni iyo gallad ilaahay mu'miniinta uu siiyey rasuulillaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh waxaanuu ilaahay qur-aankiisa ku yidhi subxaanahu wa tacaala laqad manna allaahu cala almu'miniina laqad manna allaahu cala almu'miniina id bacatha fiihim rasuula min anfusihim ilaahay wuxuu idiin hibeeyey oo idinku galladay rasuulillaahi moxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh mar kale ilaahay wuxuu inagu yidhi subxaanahu wa tacaala laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waa rasuul u lexe jeclo badan mu'miniinta iyo islaamka oo inay xagtini gaadho ama hadiba ay soo gaadho aan rabin sidaa darteed baa leyla nahaar mu'miniinta wuxuu beri jiray waxyaalahay iskaga difaacayaan shara shayaadiin shayaadiinta sharkooda waxay iskaga difaaci lahaayeen rasuulkaa siiyey salawaatullahi wasalaamu calayh qiso yaroo kooban oo ka cibro qaadataan
baan idiin sheegayaa. nin sheekha cabdisalaam baali la yidhaahdo oo sheekhan kutubaha fara badan ee mowduucan aan ka hadlayo wax ka qoray sida saarim albataarka iyo wiqaayat alinsaan min ashaytaanka iyo ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa loo keenay gabadh sixirkaasi uu asiibay sixra tafriiq. qur-aankii buu ku aqriyey, qur-aankii wuxuu ta'hiiriyoo gubay shaydaankii la soo diray ee saaxirku soo adeegsaday. hada alqur'aan waa mucjiso. ilaahayna wuxuu ina faray in aan daalimiinta iyo kufaarta qur-aanka kula dagaalanno. wajaahidhum bihi jihaadan kabiira, jaahidhum bihi jihaadan kabiira. qur-aankii buu ku aqriyey. shaydaankii muwakalka ahaa ee ruuxan jidhkiisa raacay. ashaydaanu yajri min ibni aadama majra dam. shaydaanku wuxuu awood u leeyahay xididada dhiigga inuu dhex mushaaxo dhex maro. shaydaanka noocaas ee awoodda u leh inuu jidhkaaga geli karo sida bakteeriyadu ay u gasho, ee fayrasku uu u galo, ee fangasku uu u galo, waxaas oo dhani waa makhluuqaad qofka bini aadmiga jidhkiisa. ku darsoo weliba al-insaan waa daciif, wa khuliqa al-insaanu daciifan. fayraskaa ka adag oon indhuhu qabanayn, bakteeriyadaa ka adag, oo waxyaalahan xanuunada gudbiyo oo dhan baa ka adag. ilaa man istamsaka bixabli illaahi tabaaraka wa tacaala. ninkii sheekhii maxaanku dhaha cabdisalaam baali markuu gabadhii qur-aankii ku aqriyey, gabadhii maskaxdeedii way baxday. waxaa maamushay shaydaankii loo soo igmaday sixirka. isagaa markaa carabkii gabadha isticmaalo hadlaya. markii uu qur-aankii ku gubtay ayuu ka dalbaday sheekha inuu yidhaha iga jooji qur-aanka waan baxayaa, laakiin hal shardi baan kaa rabaa, hal shardi baan ku baxayaa. waa masale aan raba inaa u fiirsataan. ii sheeg buu yidhi shardigaaga. wuxuu yidhi waxaan rabaa markaan gabadha ka baxo inaad ii oggolaato inaan adiga ku galo. gabadha waan ka baxayaa, laakiin ii oggolow inaan adiga ku galo. markaasuu ku yidhi waayahay, inagu si un baynu isula legdamaynaaye horta bal maskiinaddan ka soo baxa. dabeedna cabbaar markii uu aamusnaa buu ooyey jinkii. markaasaa wuxuu yidhi waan awoodi kari waaye inaan jidhkaagii taabto, ma awoodi karo. markaasuu yidhi ii sheeg sababta. wuxuu yidhi waxaad soo akhrisatay ducadii rasuulku uu inoo sheegay ee aanaan idin taaban karayn. oo maxay tahay? waa duco ama wardi aada dhammaantiin wada kari kartaan. rasuulkuna fadliga ay ducadaasi leedahay in badan buu inoo sheegay. bukhaari iyo muslim baanay ku taal. maxay tahay ducadaasi? laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd wahuwa calaa kulli shayin qadiir. laa ilaaha ila allahu waxdah laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamd wahuwa calaa kulli shayin qadiir. ruuxa markuu waagu baryo 100 jeer intaa ku celceliya. waa xadiid saxiixa, bukhaari iyo muslim bay ku yaalleen. wuxuu nebigu ugu ballan qaaday salawaatu ullaahi wasalaamuhu caleyh. wuxuu nebigu yidhi ninka intaa ku celceliya 100 jeer kaanat lahu cidlu 10 riqaabin. waxaa ilaahay ku abaalmarinayaa ajri u dhigma 10 ruux oo muslimiin oo addoon ahaa oo cadow haystay uu xoreeyey. ajrigeeda horta wuu helayaa. 10 ruux oo uu xoreeyey ajrigeeda wuu ku helayaa 100kaas. wa kutibat lahu 100 xasana. waxaana diiwaankiisa ku qormaysaa 100 xasanaad. wa muxiyat canhu
مئة سيئة وحا لغا ترتر دونا بقول قلد يدنبي إلهي كقلي وكانت له هل كانوا صعدوات وكانت له حرزا من الشياطين وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه ما شاء الله سبحان الله intaasoo ajri buu qofku helayaa waxaana ilaahay kaga ilaalinayaa oo ciidan ilaaliya oo ilaahay ugu xirsigu waxa weeyaan waa gaad iyo ilaashimo ayuu ilaahay u igmanayaa ilaaliya ruuxa oo ka ilaaliya ashayaatiin marka hadduu ruuxu markuu waagu bariyo بقول شر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير كوع العليم إلهي سبحانه وتعالى وكالدفاعية شر الشياطين شياطين تشركوا ذا إلهي باك قفل لنا سبحانه وتعالى وقضب كاللبات رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه حديث صحيح وحو إنه شيء روح كسته أو مسلم الرجل يدبر كونها تودونها هذا إن بدنا واندين قيبسية واندين شيء مركو جوري سكسوا بحية حدو كسوا بحو إنتن أقرسته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنت بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله انت هدور روح إلى مركو قرية كسو بحية ملائك با إلهي كالرواتيا وحي رادان لقد كفيت وهديت ووقيت صدح ذا مرتبات كوهيليسة بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلهي بان تلسارت بسنك إلهي نوان قبصدي حوق إيا حيالد آنيقو مليهي ربي بان صليها انتا هدور روح سمايو حدي الشيطان آن كور هاينين دمعو إنو ويرارو كوي لسعون جري أو وحبك تريواي بالله هدلو وحي كوران كيف سيداد وحوية لكرتا لأحد قد كفي ووقي وهدي annagaa u maarala oo saacad walba dhufayska ugu jiro jaaniska eeganayna annagina waa kari la'nahay adiga oo doolaalo ku yimi waxba ka guri kari maysid marka rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam xirsi xidh adag oo qofka mu'minka aan cibaadada rabbi ka mashquulinayn cadowgu hadduu soo weeraro aanu arkayn isagu se arkaya باك هلكا كتشوكت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه صحابة الرسول كنا رضوان الله عليهم آد بي أتح قلين شرين بل ماذا الرسول كو قاضو إيا أرمها الرسول كتر بيهين أيو مالين مالمها كاميدا أيانين صحابي يولو رنشري أبو رافع بن معلى ومساجد كتشرو الصلاة كنيا أيو حبيب كأنه أسوق عليه صلوات الله والسلام عليه صلوا على رسول وأيار يا رافع صلاة بكتر الرافع مركاسو جوابي واي مركو صلاة كبحي والله هذلي والنبي الله صلاة بان كتيري مركاسا وحول مياد قرآن كفقه سجرانين آياتها قرآن كائنات فهمتها في عن أو أتكلسوا نحب حكرت فقه إيو معناها إلهي الرسول كيسو كاربان ميان إلهي قرآن كيسا إذن كؤرا استجيبوا لله وللرسول إذا دعيتم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هدي إلهي الرسول كيسو إذن ياران ودقى النقلادة وحد كن ولاتان أو إيمانك إني يقينتي إنه أي كن ولات أيو إلهي الرسول كيسو إذن كويرا يعني هيا بو يري مسألة فقهنا ويكده هنيد صحابك
wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa raafic alaa ucallimuka biacdami suuratin fi lqur'aan ma ku baraa wiil yahow qur'aanka kariimka ah suuradda ugu cadiimsan ma ku baraa intaynaan masaajidka ka bixin haa cabaar bay masaajidka ku jireen nebigii salawaatullaahi wasalaamu calayh waa hilmaamay saxaabigii isagoo gacanta haysta bay masaajidkii ka soo bixi rabaan saxaabiguse laakiin wuxuu u muhanayaa ballanqaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaan masaajidka laga bixin buu nebiga soo joojiyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu nebiga ku yidhi yaa rasuula allah sawdigii ihamo geliyey ee igu yidhi waxaan ku barayaa acdama suuratin fi lqur'aan suuradda ugu cadiimsan qur'aanka kariimka waa runta wuxuu yidhi suuratu alfaatixa hiya acdamu suuratin fi lqur'aan waa suurat alfaatixa waana suuradda ugu qarada weyn ee ugu cadiimsan qur'aanka kariimka markaa saxaabadu fursadaha may lumin jirin wixii jaanis ay ka helaan diinta way qabsan jireen markaa sidaa darteed baa axaadiidtana ay inoogu soo gudbinayeen mar walba marka ikhwatii fillaah waxaan sidaa idiin leeyahay maalintii cashar ka dambeeyey ee aan tilmaamayey sixirka lagu yidhaahdo sixra rabt ee aan aayadaha qur-aanka aqriyayey ayaa dhowr qof baa ila kulmay oo waxay igu yidhaahdeen markii aad aayadaha qur-aanka ah magacdhowgoodii aada bilowday masaajidka waan ka baxnay waxbaana yaro gugujinayayoo waa u adkaysan kari weyne marka masaajidkii waan ka baxnayoo kobaha iyagii baanu qaadanay bay dhahdeen marka qofka mu'minkii waa shujaac hadduu intan soo akhristo wax jin ka qaadayaa ma jiro ibliis waxba ka guri maayo marka waxaan had iyo jeer idin idhaahda markaan casharadan bixinayno idinku ha isku dabaqina oo xanuunkaan sheegay allayla kaa anna waan qabaa anna kaa waan qabaa ha odhanine waxaa u qaadataan cilmi kororsi u qaata waxaanad ogaataan markaad masjidka fadhidaan in malaa'igi inagu geeran tahay xafat calayhim almalaa'ika waghashiyadhum alraxma wanasalat calayhim alraxma malaa'ig baa sidaa ugu gadaaman meelaha xaqa iyo diinta lagu baranayo marka gaadh rabbaaniya baa ina saaran marka waxaan idinka codsanayaa khayr allah idin siiye waa daciif kayda shaytaan ina kayda shaytaani kaana daciifan ha u nuglaanina marka mawaadiicdan laga hadlayo oo ha is odhanina adigaa waxaan qabaa waxa adiga aan kuu tarbiyeynayaa inaad adigu waxaan aada dawaysaba naftaadana aad ka dawayso mu'miniinta aan garanayna aad ka caawiso oo qof xanuunsanaya haddaad aragto adigoo macluumaadkii yaqaana inaad u gurmato wain istansaruukum fi ddiini fa calaykum annasr haddii ilaahay diintiisa gurmad lagaaga baahdo inaad adiguna gurmataa lagaa rabaa laakiin faaqidu shayi laa yucti nimaan isagii waxbaba garanaynin inuu isagoo haddana isagoo bilaa huba oo bilaa difaaca oo bilaa tababar ah inuu goobta dagaalka tago miyay tahay laasim askariga waxaa la yidhaahdaa qabla alxarb waa in marka hore isagu tababar waa kanay askartu yidhaahdaan dhididka nabadda wuxuu badbaadiyaa dhiigga colaadda marka haddii aada cilmigan barataan waxaa laga yaabaa naftaadana inaad badbaadin karto dhibane muslimana inaad u gurman karto marka goorta mawaadiicdan aan ka sheekaynayn baaraka allahu fiikum mar walba waa inaad hiqa cadiima ku leedihiin waman yatawakal cala allaahi fa huwa xasbuh ina allaha baaliqu amri wa ina kayda shaytaani kaana daciifan waa inaad niyadda ku haysaa adiguna aada waahiq billaahi aad tahay ilaahay aada ku xidhan tahay ood ilaahay ku kalsoon tahay subxaanahu wa tacaala intaa markaan ka gudbo waxaan u gudagelaynaa inaan wax ka tilmaanno sidee haddaba loo daweeyaa cudurkan lou yidhaahdo tafriiqu maraaxil fara badan ayuu kula marayaa
waayahay saddex marxaladood baa laga rabaa inaad tixgeliso markaad xanuunkan ama adigu iska daweynayso ama aad cid kaleba ka caawinayso waxaa laga rabaa saddex marxaladood inaad tixgeliso waxaa laga rabaa inta aanad shaqadan iyo hawshan iyo dagaalkan aanad gudagelin xaaladda aad dagaalka gudagelayso inaad jawi haadi ah oo saafi ah oo aan u hiilinaynin cadowga inaad ka dhigto haddii meel dhufays cadowga u aad tidhaahdo anna dagaal baan ku qaadaya isagoo markii horeba aadan arki karaynin haddana uu dhufaysyadii uu ku gabanayay ee caawinaya meesha ay yaalliin laba awoodood buu wataa mar cadowku arkayo adigu aanad arkayn weeyaan marna jawiga aad wax ku dabiibaysaa isaga caawinayo adiga aan ku caawinayn markaa jawiga aad wax ku dabiibaysaa waa inuu noqdaa jawi adiga kuu hiilinaya oo adiga ku caawinaya maxaan uga jeedaa waa marxaladda koowaad waxaan uga jeedaa in jawigan aad wax ku dabiibayso waxyaalaha macaasida ah ee shayaadiintu ay ka faa'iidaysato waa inaad ka saarto maalan guriga aad wax ku dabiibayso waa inaan ay joogin waxaanu rasuulkeennu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam in malaa'igtu aanay soo gelaynin guriga aygu joogo waxaa nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam guriga aad wax ku dabiibayso waxyaalo suurooyin iyo sawiro inaanay oolayn waxaa kaluu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam in ruuxan aad dabiibayso haddii uu xidhan yahay qardhaaso iyo waxyaalo maxaanku idhaahdaa shareecada ka soo horjeeda oo talaasimtii aynu soo barannay iyo istiqaahaadkii iyo waxyaalihii gurmadadii shayaadiinta laga dalbanayay iyo wixii ay ku qorqoran yihiin waa inagii talaasimta iyo waxyaalaha aynu si fiican usoo sharaxnay ardayda wixii hore ula soo socday markaa ruuxani haddii uu xidhan yahay waxyaalo qardhaaso aan shareecadu oggolayn hadduu xidhan yahay waa inaad ka siibto sababta oo ah shaydaankaa dugsanaya oo weheshanaya meesha aad wax ku dabiibayso waa inaan muusig iyo heese iyo wax cinkaasa laga isticmaalaynin meesha aad ku isticmaalayso dabiibku waa inaanay joogin dad macsiyo ku jira maalan nin dahab xidhan baa meesha kula jooga oo haddii alla yidhaha ilaahay ka mamnuucay nin xariir xidhan baa meesha jooga nin bilaa salaad oo taariku salaadaa meesha jooga waxyaalaha macaasida ah way ku gabadaanoo waxay ka dhigtaan dhufays markaa ruux bilaa salaadii hadduu meesha fadhiyo waxaa suuragal ah in ay ku gabadaan ama shayaadiinta ka xoog roonaatay kan taariku salaadka ihi inuu ku sii adkayo gurmad u noqdo ruuxan aad rabta inaad dabiibto waxaa muhiima ruuxan aad dabiibaysa laftiisu inaanu waxyaalo maxaanku idhaha ilaahay u diiday aanay jidhkiisa saarayn maalan haweenta aad dabiibayso haddii ay marsan tahay xamuurad oo ciddiyaheeduba qarsoon yihiin oo hadday weysayso istiraado weyse aanay asaxayn oo hadday xayd ka maydha istiri xaydba aanu ka maydhmayn sababta oo ah jidhkii qayb ka midabaa waxaa saaran rinji daahirba maahan hadday xayd leedahoo xaaladii ku timaaddo waa lagu aqri'i karaa waa xaaladee ilaahay uu ku keeno iyada awooddeeda ma ahan laakiin xaaladaha qofku isagu uu doonto sida xamuuraddaas oo kale iyo wixii la mid ah iyo sida maalan haweenkan xiribaha gashada baallahan indhaha hadda waxaa jira maxaanku idhaha xiribo samays ah oo dhaadheer oo xiribaha kale lagu laxaamado xiribtii ishu ma muuqato ee xiribtan kalaa qarinaysa marka qofkii maydho ama janaabaha ka maydhanayo ama xayd ha ka maydhanayso ama ha weysaysanayse ilaan xubnihii weysada wejigaa ka mid ah indhihiina biyihii intii muuqatee ha la maydha layidhi ma gaadhayaanoo xiribahan
maxaan ku dhaha samayskaabaa ka soo horeeya taas weyse ma ka asaxayso janaabo hadday ka maydhansana ma daahirayso haddii xaydku ka go-aa maydhaystira ma daahirayso ruux janaabo qabana salaaddu waa ka xaaraan ruux xayd weli aan ka maydhana salaaddu waa ka xaaraan sababta oo ah tacmiimulbadani bilma' baa laga rabay soo maaha tacmiimulbadani bilma'na ma xasilin markaa ruuxan aad dabiibaysaa waa ruux sidiisaba shaydaan dee uu weheshado uu la socdo sababtoo daahirba maaha marka tahaarada aynu sheegaynaa tahaarada xaydka qofku hadday xayd qabto dhibina ay haysato qur-aankii waa lagu aqri karaa laakiin waxyaalaha qofku isagu gacantiisa ku doontay ee noocyadaasi ay ka mid yihiin waa in marka hore laga badbaadiyaa oo haddii alla yidhaahdo diinta ilaahay lagu waaniyaa towjiih ilmariid waa in la wacyigeliyo qofkan buka ee jimanku ay haddii alla yidhaahdo ay dhibaataynayaan iyo qaraabadiisuba si ay u caawiyaan waa in la wacyigeliyo oo waxa ilaahay iyo rasuulkiisu ay ka rabaan waa in loo tilmaamo intaasoo dhan adaa lagaa rabaa inaad haddii alla yidhaah u finig yeelato waxaa kaloo lagaa doonayaa ruuxa marka laguu keeno inaad tashkhiis ku samayso macnaheedu qofka inaad waraysi la yeelato markaad waraysanayso calaamadihii aynu soo sheegnay inaad wax uga weydiiso markuu tafriiq yahay inaad xaalata tafriiq uga shakisan tahay waa inaad weydiiso su-aalihii haddii alla ka dhigo aynu soo tilmaanay wax ka mid a haddii su-aalihii badankooda uu sheegto ama wax ka mida uu sheegto boqolkiiba yacni konton wax ka badan waxaad haysataa kalsooni ah qofkani inuu xanuunka qabi karo dabadeedna waa inaad markaa haddii ilaahay yidhaahdo markaad su-aalahaagii ka dhammaysato waa inaad qur-aankii ku bilowdaa qodobka toddobaad ee lagaa rabaa waxa weeyaan anta bishaksik shaksi ahaantaada marka aad yacni mucaalij tahay wax dabiibaya adiga laftaadu waa inaad haddii alla yidhaahdo aada weyse qabtaa adiga laftaadu waa inaad mutawadi' tahay oo aada gaadhan tahay oo askari difaac oo diyaara aad tahay dagaalu diyaara adigoo bilaa weysaa ama adigoon salaaddii subax jamac la tukanin ama salaaddii subax ay hurda kaaga tagtay dagaalka ha gelin ninka ruuxa salaada subax tukadaa wuxuu ku jiraa fii dimmat illaah ruuxa hadduu salaada subax uu tukado huwa fii dimmat illaah adigoo salaaddii subax hurda kaaga tagtay ama jamacii sagsaagay adigoo tegi karayay waad u nugushahay in cadowga aada la dagaalamaysaa haddii uu maarid yahay madax adag inuu adiga laftaada kugu daro marka waa inaad had iyo jeer ku dadaashaa salaata subx salaata subx waa salaada ugu adkaansho badan munaafiqa waa min calaamaati almunaafiq labada salaadood ee ugu adag waa salaata alcishaa iyo salaata subx marka adiga oo jiniba ku kooraystay oo salaaddii subax kaa tagtay baan haddana dagaal gelayaa oo weliba cadow aan arkayo aanan arkayn baan la dagaalamaya adigaa markaa daraygaa isdhigay waa inaad adigu marka hore aada weysadaada iyo adkaartaada iyo dacooyinka ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamd waa inaad ku dadaashaa haaminan haween hadday tahay ruuxan aada u gurmanaysaa ee xanuunsanaysaa waa inay asturkeeda oo dhan ilaashataa timaheeda waa inaanay wax ka muuqanin xubnaheeda xaaraanta ilaahay ka dhigay inay qaawiso waa inaanay wax ka muuqanin waa inay maryaha markay qur-aanka lagu bilaabayo waa inay maryaha si fiican u geejisataa waxaa suurtagal oo in badan aanu aragnay qofta marka qur-aanka lagu aqriyo in ay dareenku uu ka tago oo ay sidii wax waaliyaba ay ku dhawaato maskaxdeedu aanay joogin dabadeedna ay rafato ama ay dagaalanto ama ay orodo markaasoo kale waxaad ka taxadaraysaa addoontaa muslimadda in cawradeedu muuqato adigaa mas-uul ilaahay kaaga dhigay goortaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati dardaaran kale waxaa muhiim ah qof dumar ah oo kelideed socota ha dabiibin qof dumara oo kelideed socota ha dabiibin
sababta oo ah haddii laba ruux isla khaali noqdaan oo ajnabi kala ah shaytaan baa ku saddex hadduu meeshaa shaytaan soo galana shaytaanka had la dagaalamayso waxba ka qaadi mayso lagaba yaaba awliye kastaba ahaw oo inuu shaytaanku kuu qurxiyo oo dabadeedna halkaad adigu aad ku cibaadaysan lahayd in aad u gargaarto qof mu'mina in macsiyo iyo wax la mid ah marka waxaa muhiim ah haweenka markaad dabiibayso in ay cidila socoto waa muhiim xijaabkeeda iyo maryaheeduna ay u giijisan yihiin intaasuba waa muhiim oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay fitnada ugu weyn ee ummadda islaamkii inay tahay nisaa ina awala fitnati min bani israa'iila kaanat innisaa marka adigii mucaalijka ahaa ee wax lagu soo mooday inuu ibliisku adiga macsiyo ku geliyo dabadeedna kaa awood bato oo markuu adigii yacni macsiyadii ku geliyo dabadeedna aada u nuglaato marka dambe cadceedda u sujuud buu ku odhanayaa hadduu kaa awood helo ilaa adigaa isu kadaye marka waxaa la rabaa inaad tacaaliimta noocaas oo kale ah inaad ku bilowdo xaaladda aada wax dabiibayso baaraka allahu fiina wamin fiikum marka waa inaad taxadar aada qaadato waa in markaad jawiga sidaa u wada sallaxdo ee jawiga uu saafi kuu noqdo inaad cilaajkii bilowdo wa anta mutawakilun biاllahi tabaaraka wa tacaala waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuhu marnaba adiga cibaadadaada iyo salaatuleylkaaga iyo ikhlaaskaaga iyo sadaqadaada marnaba ha itikaalin wa yowma xunaynin id acjabatkum kahratukum falam tugni cankum min allahi shay-a marka qofka mu'minkiihi aqoonta uu leeyahay iyo khibradda uu leeyahay iyo waayo aragnimada uu leeyahay iyo xifdigiisa qur-aanku waxba ma taraan haddaan ilaahay waxay yidhaahdaan kuwan maxaanku idhaa balweeyaba waxay odhan jireen haddii gudun ilaahay aanu kugu gargaarayn waxba kuuma goyso gacantaa ku daasha haddii maxaanku idhaahdaa aqoontaada ikhlaas aanu wehelinaynin wax allaaliya waxaad ka tari kartaa ma jirto xataa saxaabada rasuulkeena ridwaanullaahi calayhim qaar ka mid a ayaa rasuulku uga markhaati kacay sekadda uu soo maro hadday shayaadiini joogto sekadda kale ka wareegi jireen cumar binu khadaab radia allahu tacaala canhu shayaadiintaa ka baqan jirtay oo sekadda uu soo maro dhammaan way ka guuri jireenoo sekadaha kaley mari jireen markaa ruuxu hadduu cibaadadiisu fiican tahay mutawaadicna yahay mutawaadic aan kibir badnayn sideedabana haddii qof bini aadmiya oo dhibbanihii uu kuu yimaado fursaddaa dhibta ahee kuu keentay ha uga faa'iidaysanin waxaad ka soo qaadaa adigu inaad tahay ka isaga maanta u iman lahaa inaad adigu bugto oo aada isaga u baahan lahayd sidaad jeclaan lahayd in lagaa yeelo adiguna inaad ka yeesho ayaa lagama maarmaana xubban liakhiika maa tuxibu linafsik waxaad adigu jeclaan lahaydee khayra adiguna dadka kale in aada u samaysay samafal ku samee wixii intaa ka dambeeya marxaladda koowaad baa la ydhaha intaa marxalad labaad baa jirta oo marka aada bilaabaysa cilaajkii qur-aankii aada akhriyeysay iyo howlihii aada gelaysay ayaa halkaa ka bilaabmi doona in sha allahu casharka kan ku xiga ayaa waxaa usoo diyaargaroobi doontaan qaabka loo dabiibay iyo aayaadka lagu aqriyay mujarabka noqday ee culimo fara badani ay haddii alla yidhaahdo howlahan ay ka qoreen baynu u gudbi doonaa haddii alla yidhahdo laakiin waxaa iga dardaarana mowduucani waa mowdic cabsi badan oo had iyo jeer dadku ay ka argagaxaan marka laga hadlayo maa yuqaarib alxamdu lilah laa usaki cala allahi axad waxaan 30 sano ka yarayn baan hadda mowduucan ku jiraa welina ilaahay igama horkeenin wax dhibaato ah ilaahay igama horkeenin marka ha ka baqanina waxani waa shaytaan ina kayda shaytaani kaana daciifan aada iyo aad buu u liitaa waxaan casharadan idiin siinayaa khayr allaha idin siiye inaad makhluuq ka maarantaan wadaad hebel u geeya wadaad hebel u geeya wadaad hebel u geeya
inaad ka maarantaan gacantaadaa biyo lagaga dhergaa inaad idinku ehelkiinna iyo qaraabadiinna iyo qoyskiinna iyo nafihiinna inaad difaaci kartaan oo dabiibi kartaan marka casharadan haddii alla yidhaahdo si fiican inaad u dhuuxdaan oo cidday dhaaftana dib uga soo raacato insha allahu meelaha lagu duubay ayaan idinkula talin lahaa oo aad ka xorowdaan maxamed sheekh ismaaciil iyo wixii la mid ah iyo kuwa murtasiqiinta ah oo sida kale oo isticmaalaya oo idinku haddii alla yidhaahdo cadowga aad kaga adkaataan insha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu